ilaa maantana ma degan. maxaa la isku haystaa? hal qodob baa la isku haystaa. annaga landheer ah, annaga ayaa dalka xaq u leh inaan xukunno, cid kale xukumin mayso. dalka hadduu rabo inuu dego waa inaan reer hebel baynu nahay, waa inaan xukunkaan noqon oo madaxweyne aan noqon annaga. ma jidha soo maaha, dalkaa degi maayo, wax kale la iskuma haysto. war halkay ku qoran tahay adiguna soomaalida aad u badan tahay, adugu tira kitaabkee qoraya? ma waxii baa kusoo deg ma nin waliba soomaaliya wuxuu ictiraafsan yahay asaga inuu ugu dad badan yahay, uguna tira badan yahay. soomaaliya dagaal 16 sano bal magacyada adduunka aan ka qaadana fi waxay noqotay waxaa lagu magacaabiya jaraa'ida markaa akhrisid caalamka ardul jaxiim, dhulkii jahanamada. way waxaa la isu garaacayay sawaariikhda aad taqaaneen iyo mataqaana hoobiyaal. ardul jaxiim waxaa lagu magacaabay soomaaliya ardul mowt, dhulkii geerida. dadka ayagoo nool nool ayaa istaaga laga dhici jiray. waad la socotaa jamciyadda qurumaha go-aamadii ugu dambeeyay mataqaanaa warbixinta ay soo saaraysa waxa way 1 milyan iyo bar ayaa ku dhintay soomaaliya. 1 milyan iyo bar dhaawacana waa jira haddaysa ka badnayn. intaana maxaan isku haysanaa? diin la iskuma haysto, dhaqan la iskuma haysto, laan annaga dalka xukumeen. annaga landheer ah, dalka cid kale ma qabanayso. kuwii kale waana la kala adkaawayo. nin landheer noqdo dalkaa qabsada waa la ogeysanya. war haddaba landheer dalka lagu qabsan maya, laangaabnime midnaba lagu qabsan maya. war waxaan ku qabsan karna dalkii waa naga badan. soomaaliya waxaa lagu qiyaasiyaa ilaa 8 milyan xaqiiqatan, oo in badan 2 milyan dibadda ku nooshay. 630,000 oo kilomitr oo isku wada Soomaaliya oo dhul aad u badan. dhulka nuskiisa Japan oo 2 milyan iyo bar ah, 2 milyan way 200 iyo 2 milyan aan ku qoran 250 milyan qiyaas 250 milyan waxay ku nool yihiin Soomaaliya nuskeed. dhulka Soomaaliya nuskeed ay ku nool yihiin, markaasi barwaaqo ka dhigtay. annagana 630,000 oo kilomitr oo square ah ayaynu haysanaa. waa naga badan yahay dalka, markaasaan isku haysanaa. haddaba waxaa weeya shayga keliya oo maanta na midayn kara waxaa weeyaan alrujuucu ila allahi wa rasuulih, alrujuucu ila kitaabi illahi wa sunnati rasuulih. waxaa kaloo jira kelimadan soomaaliya assomaal dictionaryka carabiga hadda waxaa loo geliyay kelimatu damaar inay tahay. waxaa lees markii dowladaha carabta dirirayaan, hadda cadaan markii diriraysa iyo mataqaana sanaa yamanta dhexdeeda, ninka booteynaya maalan cali saamil bedo wuxuu dhihi jiraa najcal nusawmilukum, markuu u hanjabaayay qoladan sanxaniyiinta. waa inu soomaaliyanayna, yani waa inu burburinayna. kelimada somaal waxay noqotay kelimad macnaheedu u dhiganta addamaar, burburin iyo baabi'in. miis ahaan nasiib daro, waa wax aada u nasiib daro ah. haddaba waxa weeyaa marka gunaanadkii ujeedadii gunaanadkeeda hadda mawduuca su-aashii hore gunaanadkeeda waxa weeya qabiilku islaamku waa la dagaalama. islaam iyo qabiil shaqa iskuma laha, meelnana ma wada geli karaan. islaamku qodobkan fili, islaamku waa fitra, waa sida caanaha hadda ku dirtay dhibac liima waa kala daadanaya. islaamku wax kale inaad ku lifaaqdid, islaam iyo reer hebel uma baahna. islaamka magaca ayaa kifaaye ah, magaca ayaa horumar lagu gaari karaa. carabtii markii ay ka baxeen habkii qabiilka, reer bani mudar, reer mataqaana quraysh, reer kanaana, reer mataqaana khusayma, markay ka baxeen oo islaamku u miday ayay waxay awood u yeesheen waxay awood u yeesheen inay baabi'iyaan labadii quwadood oo jiray ayagoo magaca islaamka wata. ayay waxay awood u yeesheen inay baabi'iyaan alfurus warum. laakiin markii hore qabla alislaam carabtu qolana waxay raacsanaayeen الروم قولنا واحد رأس سيا أي رأس نايين الفرس قول بأود يشان وهي أود يشان مكي ما جي إسلامك يكون هذا جزاك الله خير شيخ سعيد.